النبي محمد محو يلي مركو الصحابة يسوسوا ورورية عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية بلغوا عني كتاب الله يردن لما ورني بلغوا عني ولو آية بالنبي عليه الصلاة والسلام هل آية هالنقطة قرشية إذا وحين لنا هي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين تصال يلقوا ما ندسينيا تاريخ المسلمين وحالها هي دولة مسلمين وشبي بغر مسلمين والله قفاشي يمل الدلي دولة دي مسلمين تولغ حوق بطي حدنا إسلامكو اسمر من مسلمين تمتر يرانين ويسي بدنيينو حقاي وحكا جيران مركا عيدا باجرا آن شابين جيش الدعوة ما شابه ولذلك دادكو إمكا انت بادان وحي مشغول كوين كراسيد السياسية تاريخ الإسلامي وحي لا دايبيدا هذين معجزة وحي كتاران كتل مامان علماء التاريخ معجزات وام حي تاريخ ده بني آدم كان لغو ما حيو dad waddan qabsaday oo dadkay qabsadeen ee u talinayeen ay hoostooda ku jiray diintoodii qaatay islaam mooyaane lama hayo hadiya goor bini aadamku qaalib ku raaca cid xoog badan duunin waddanka qabsaday iyo waddanka iyo wax oo dhan iyo dadku waxay u badan tahay inuu raaco maxay kaasi mabda uu watay laakiin dadkii la qabsaday mabdaooda inay salaatiintii qabsatay qaadataa taariikhul islaam baa lagu hayaa مثلا الدولة السلجوقية ما مقشين الدولة السلجوقية واحد دعي قرنقي الشناد ميلها سي وقتها مشرقي العربي واحد قبصدي الدولة الفاطمية وصو قبصدي مشرقي إلى مصر إلى أي بيت المقدس يا قار كيدي الشام قيبة كمدة انت واحد قبصدي الدولة الفاطمية الدولة العباسية ninbaa loo magacaabay buwayhiintii shiicada ahayd baa qabsatay dabeetana boqorku wuxuu iska noqday wax magaca labada dhanba shiica qabsatay markaa caalamul islaami labadani markay shiicada qabsadeen waxa bilaabmay baatiniyada iyo faafkeedii ismaaciiliyiintii ayaa bilaabmay faafitaankoodii waxa bilaabmay baatiniyiintii meesha tan kacbada kuwii qabsanayay waa markay soo faafay waxa soo dhan baa bilaabmay waxa faafay markaa عالم الإسلامي يردم أهل السنة عكته وستيس اللقلية ودولة دي إسلامية هاني شيرين واحد شرتي آسيا الصغرى دولة كردسنيت أو تركيا هايد دولة تركيا دولة قالابا هايد دقاق إن لورين شريبا ها مدح دوصر رئيسة كمدا عيدا مدا هايستي وحاسيين أنو دولة سلجوق ليدادو ayaa meeshii dhaxlay inaan aqli badan buu ahaa dawladnimadii baa ku dhisantay in xoogan buu noqday boqorkii meesha joogay ayay gabadhiisii xaaskiisii waxay tidhi kan hadduu sii joogo meesha ka qaadaya warninkan ka takhallus madaxdu had iyo goor nin ka fariidsan ma jecla ninka madaxweynaha wasiiradiisu inay ka aqli hooseeyaan dad mid ka fariidsan keento uu ku hadhaynaya marka inta badan madaxdu ninka sulta haysta ma jecla cid isaga ka hooseysa isaga ka sarreysa ma jecla dee cid aad wadi karta weerad ka haysata ilaa nima aad wadi karin haddaad ka haysato adaa jabaye way u cabsatay in uu ninkani ka qaado meesha marka waxa la yidhi ninkan ka takhallus ninkii waxa la damcay in laga takhalluso saljuuq ibn daqaaq wuxuu ogaaday in la dilayo dabeetana qabiilkiisii raggii ugu roonroonaa iyo ciidamo wuxuu la baxsan karayay rag 400 nin iyo wax gaadhaya buu goostay u baxsaday wuxuu u tallaabay dhulkii muslimiinta halkaasuu iska degay muslimiinta soo dhaweysay ninkii diintii baa loo sheegay wuu islaamay gruubkiisii la socday waa islaameen meel yar buu samaystay dawladdiisii baa sii xoog badatay way soo socotay
waxay soo gaadhay inanku awowga u ahaa yani طغرى البك ninkii la odhan jiray طغرى البك waa ibnu daawuud ibnu mikaa'iil ibnu saljuuq weeyaan طغرى البكkaasi ayaa xoogaystay khuraasaan iyo intaasoo dhan buu isku qabsaday dawlad yaroo xooggan buu noqday boqorkii halkan shiicadu ku haysatee nafta haysataa waraaq hoosta uga dirtay oo meel iskaga xidhan oo yidhi warna soo gaadh haddaadna soo gaadhi karto طغرى البك baa ciidamadiisa soo kaxaystay wuxuu qabsaday baqhdaad buwahiintii uu ka takhallusay dawla islaamiya baa dib u soo noqotay waa geeriyooday walaaladii raggii baa sii qabsaday waa alabarsalaan baa dhaxlay alabarsalaan wuxuu ka mid yahay boqorradii ugu cadaaladda badnaa ee soo mara taariikhda islaamiga wuxuu ka mid yahay nimankii maxaa la yidhaahdaa alxuruub asalibiya aluula waathaaniya waa ninkii ilaahay gacantiisa ku joojiyey wuxuu ka mid yahay dawla sunniya ninkii dib u dhisay ee xoojiyey ilaa shaam gaadhsiiyey dawla alfaatimiya joojiyey bal dawla albisantiya dhul badan ka furtay dee malaad dakar waa taqaani mafle macrakada la yidhaahdo qisaskii uga cajabta badan leh isagoo meelaha si dagaal ka wada ayuu boqorkii bisantiyiinta qustantiin haystay dawla albisantiya haystay baa ciidamo urursaday ilaa 200,000 ciidan gaadhaya bay yidhaahdeen wuxuu ku talagalay inuu muslimiinta oo dhan ka takhalluso alabarsalaan baa loo sheegay oo 20,000 oo ciidan ku dhadhow wata qaarkood 15,000 baabay ku sheegaan wuxuu yidhi maxaan yeelaa nin sheekhoo la socday baa yidhi maantunbaa magac iyo jannaba kuugu dhowday maantadanaynu joogno laba midunbaad heli taariikhdu nimay qortoo magaca leh oo muslim oo dhan badbaadiyaad soo bixi ama jannadaad hore ka geli ma meel la shakiyaabaad joogtaa ciidamadiisii oo dhan buu isugu yeedhay oo yidhi dhegaysta maanta laga bilaabo boqor ma yihi sidii boqorna wuxuu amri maayo gaala wayse soo urursatay waxaan go'aansaday inaan dagaal galo idinna way iga fasaxantiin wixii ila dagaalgelayona way ila dagaalgeli kartaan wixii iska tegayona waad fasaxantay waxay idhahdeen boqor mar haddii islaam la difaaciyo aad ilaahay dartii u dagaalamayso waa kula dagaalgelaynaa 20,000 baa la dagaal galay muqadamadii ciidanka allaysale wuu jebiyey dabeetana hudnu u diray waar iska heshiina buu ku yidhi gaalkii dee ciidan muu haystaa ciidanka badan wuxuu yidhi heshiiskaad sheegaysa waxba kama jiraan nin baa alla kaa dhigay wax iska dhici wuu diiday hudnadiina waa la isgalay intay jebiyeen bay boqorka laftiisii soo qabteen boqorkii qustantiin baa la soo qabtay dabeetana la keenay maxaad filaysaa buu yidhi inaan kuu sameeyo 3 baa oo suurtagal buu yidhi waxaan kaa yeeli lahaa inaad iga yeesho oo inaad dee si xun ii dishid ama inaad itashiriso i xumaysid ama caynkaa u karameeyo waxba kugu samayn maayo buu yidhi isfuro maxaan isku furtaa 1 milyan oo diinaar bixi baa la yidhi 1000 diinaar wuu aqbalay 1000 diinaar buu bixiyey dabeetana wuu sii daayey intii halkan lagu hayay gaaladii surursato waxay dhahaan boqorkiinoo mid kale calama saareen gaaladii intii hadhay iyagaas ku jabtay oo 2 boqor bay yeesheen dabeetana mushkilad kala qabsay maxaan uga dan leeyahay waxaan uga dan leeyahay taariikhdii alabarsalaan waynu haynaa taariikhdii طغرى البك waynu haynaa taariikhdii ahlu sunna ay soo celiyeen soo dawladda ma taqaan inay tahay dawladdii ahlu sunna macaahidii la odhan jiray almacaahid الnidaamiya ma maqasheen taariikhda ahlu sunna nimankii soo celiyey macaahid الnidaamiya waa alabarsalaan inankiisii alabarsalaan ninkii u ahaan jiray ra'iisul wasaaraha inankiisii malakshahana u ahaa ayaa dhisay nidaamudiin la odhan jiray waa wakhtiga ay culammadii islaamiga dib ahlu sunna inta meel lagu ururiyey faqiihii shaaficiga ee shiraazi ayaa madax looga dhigay ninkan muhadabka leh ayaa madax looga dhigay dabeetana waa meesha ka bilaabantay madhabka shaaficiga faafistiisii dambe ee juwayn iyo shiraazi iyo maxaa la yidhaha ghazaali iyo qoomankani ka soo baxeen ahlu sunna dib loo soo nooleeyey laakiin yaa inoo sheegaya taariikhda saljuuqkii islaamiyey reerkan waxaan muslimka u taray yaa diinta ku soo daray taariikhda ma hayno garan mayno maxaan uga dan leeyahay markaa quluubta dadka furtaa inta badan taariikhda laguma qoro maalan qiso labaadaan idiin tilmaamo tataarka waa maqasheen
waxay jebiyeen caalamul islaami oo dhan intiisii ugu badnayd ilaa iyo falastiin bay gaadheen intay ka soo bilaabeen china muslimkii joogay agagaarkiisa ilaa iyo dawla alkhawarzimiya dawla alcabaasiya ilaa iyo bayse soo taageen maxay shaam mamaaligtii yareed ee masar harsanayd unbaa u harsanayd mamaaligtii dagaalkaa way joojiyeen way soo celiyeen caalamul islaamigii yaa ka fujiyey markaa kale xun baynu maqalnaa waa la jebiyey dee waxa lagu soo jebiyey shaam laakiin baqdaad sidii bay u haysteen baqdaad ma cid baa xoog kaga saartay caalamul islaamigii kale ayaa ka saaray tataarku jinkis khaan ilmuhuu dhalay afartii waa kuwii dowladnimada qaybsaday mid iyada muslimka ismay soo gaadheenoo tii mongolia iyo jina xaggiisa ashiya dhankaa u kacday saddexdii dowladooda kaleba way islaameen midba wakhti ay soo gashaba golden tribeka ugu horreeyey qoladii xagga sare joogtay alqabiila dahabiya la odhan jiray barka khaan ninkii la odhan jiray tii xaggan soka joogtay axmed tikoor ninkii la odhan jiray soo duuduub qaarkood islaamkoodu hore umuu fiicnaanin yaasiq iyo waxbay hoosta ku haysteen way soo koreen 656 meelahaasay hayd soo maaha markii baqdaad la qabsaday 680 dowladda islaamiya bay ahaayeen yaa bedelay ciidankii muslimiintu wuxuu samayn kari waayey waxaa sameeyey jeyshu dacwa markuu jabay ciidankii muslimiintu waxaa muslimiinta dib u xoreeyey maxay jeyshu dacwa maantadan aynu joogno waxaa la leeyahay the fastest growing religion in the world is Islam diinta ugu fufka badan leh ugu faafka badan leh maantadan dunida aynu ku noolahay waa islaamka percentaantiyada u badan laba sababoodba dhalmada soomaalida Soomaalidan maqal jirin dee laba walaali hadday kala dhalbataan mid baa la odhan jiray waa laandheera soo maaha soo inta una intaan isku gubaysan jirnay dee طبعا dhashu waa waxa la isku gubaysta aakhirka dalbadnida muslimiinta waxay u socotaa xad ay rekoorka jebinayaan xad loo malaynayo magaalooyin waaweyn oo maanta Yurub ka yaala Belgium caasimadeeda waxa la leeyahay 25 sano waxa laga cabsi qabaa inuu muslimku majority noqdo bisababi waxa dhalanaya way iyagu gaalada inay wax dhalan bay diideen kuwi kalena way dhalayaan ka kaalay marka la eego riverka ama kuwa diinka baxay islaam gala na muslimiinta u badan dadka soo islaamaya ka badan ma dawlad islaamiya maanta islaam wada jirta ما دولة مسلمين الإسلام كي الذي رسي وإرهاب وكان وساطن وعين كان عالم الإسلام بدنا أنت أقول بدن لما حي إسلام هو وحل عدادنيه هذا نو فافية يا فافنية دعاة إذا تاريخ دتك مصلحين هاي صالحين تي أنبياء دي دتك صوبنا يا سيدي وحقبتين يا بني آدم كي يدلك كوع عضي يا سيدي لو إصلاحيي waxay inoo ifinaysaa waxa aynu rabno inaynu qabanno iyo meesha aynu u soconno marka taariikhda dacwa laga warramayo mushkilad baa ka jirta kutubu taariikh aadanaha kutubu taariikhda uu qoro inta ugu badan leh waa taariikh siyaasi wa sulta ay kitaab taariikh ka warramaya gaal iyo muslimo qoray markaad soo qaado والدولة بعد عدي دولة بعد سنتي دجال بالغالي كان هبل به جامينيي تاريخ ذا أدنه أنت بدن قرا مركها وتاريخ السياسي أما تاريخ السلطة لكن مركز الدعوة لقوا الرميه ما تاريخ فتح البلدان وتاريخ فتح القلوب أدنها قلبي سيدي الله فرطي يدتك هجاميي فرطي قلبي بني آدمك wuxuu sheegay hagay idan waa taariikh gadisan taariikhda inta badan kutubo taariikha ku aragtaan kutubo taariikh islaami hatta ka kale kuwa gaaleeto kutubo taariikh islaami inagu waaweyn haddaad soo qaado inta ugu badan leh waxa laga warramayaa الدولة الأموية الدولة العباسية الدولة العثمانية مماليكتي سلجوقيينتي وهلما جرى دول كاسية سيدي ودعين هي سيدي وكعين هي سيدي وهوبتين وحلقة ورمية المعارك الكبرى في تاريخ البشرية
dagaaladii waaweynaa ee dunida soo maray xataa haddaynu cahdiga islaamigaa soo qabanno wixii dagaal weyn dhacay ee taariikhda isbeddel ku sameeyey dagaalada iyo goobahay ka dhaceen iyo raggii hogaaminayay iyo wixii ku saabsan laakiin marka aad tidhaahdo ka waran taariikhu ducaad waxaasoo dhan wuu ka gedisan yahay ciidamadu dhul bay furtaan laakiin dadka quluubtooda yaa furtaa ciidanku dhul buu qabsan dhulka dad baa degan diimay haysteen mabaadi' bay haysteen dhaqamay haysteen militarily bay u jabeen laakiin maxaa keenay inay dadkii muslimiin noqdaan weliba ataariikh alislaami lama hayo ijraa'aat caskariya ama siyaasiya oo aadanaha lagu qasbay inuu diin islaam qaato taariikhda laguma hayo taariikhda kale waa la hayaa xaakimi taftiish iyo meelo badan oo diima la isku qasbay way jiraan ama taariikh alislaami kuma jiro dad diima lagu qasbay iyo ijraa'aat loo sameeyey dadka in diima lagu qasbo walidaalika waxaa jira baynu leenahay markaa taariikh aada u ballaadhan taariikhdaas xaggee loogu noqdaa مراجعده waa xagee المرجع الأصلي في هذا التاريخ وكتاب الله سبحانه وتعالى قرآنكم وأوثق وبوغا authentication كيسو سحسن يحي تاريخ دي ugu hagaagsaneyd aadanaha soo dhex marta dadkiisii muslimiinta ahaa iyo dadkiisii ka warrama ومن بعد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كان صحضي نوح مثلا بيده بأول رسلها ورسولك قرى إلهي مددي سينو شيغي ودعوة ودي أنبياء ذاك القرآن كما ورمي لكن النبي نوح سقى وحلا شيغي مدة دعوتي حييري يا محي 1000 عام 1000 سنة إلا 50 عاما سقال بقول إيا كنتن سنة بالليل ayuu isagu warkiisa waday waxaa lagu sheegay ulul azmi min ar-rusul inuu ka mid yahay quraanku 43 jeer baa magaca nabi nuux ku soo noqday 29 suuradood baa ilaahay kaga waramaya suurad ka mid ah quraanka ayaa isaga magaciisa suuratu nuux la yiraahdaa ambiyada ugu badan quraanku ka waramo ka mid yahay waxa ka mid ah ambiyada ugu badan quraanku ka waramay maxay nabiyullaahi muusa نبي موسى ونبي ugu badan ee quraanku sheegay 136 jeer buu sheegay 136 jeer ayaa magaca nabi muuse ku soo noqday qisadiisu 34 suuradood oo quraan ay ku taala oo nabi muuse ilaahay subxaanahu wa ta'ala kaga waramayo waxa la tilmaamaa de qisada nabi muuse iyo reer banu israa'iil siba reer banu israa'iil قرآن إلهي مثل كور رمي في سورة البقرة مثلا آيات كوهر رأيه وحلق كور رمي أهل الإيمان آيات كوحق أهل كفرك آيات كوحق منافقين بودهان مركي لتلمامي أي تاريخ البشرية لتلمامي آدم يقصدي سيبا إلهي كور رمي كدبنا غير بنو إسرائيل يقصدي سالة كور رمي وعلى سورة البقرة ولا بغلي اللي حستيتنا آيادات بغلي يتبنى آيادات بيهود كور رميها oo ah waqtiyadeedii kala gadisnaaya ay soo mareen taariikh aad u ballaaran baa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka sheegaya waxaa soo dhami waa taariikh dacwa waa anbiyo rusul saalixiin iyo aadana loo soo diray iyo aadanuhu warkay keeneen iyo inxiraafaadkii ka dhacay iyo sidii loo saxayay quraanka waxaa kaloo ku yaala قصص عن قصص كأنبياء هين يرسوشة وهنا الدعوة كورمية مثلا قصة أصحاب الأخدود في سورة البروج كورميسي وقصة كورميسة إن نير الله بندقي لما الدعوة دودو اسكسور جيدا قف كامل حريتي هايسته لكن ضنا nin aqoon-yahan oo ilaahay rumaysan wax ku akhrinayo dhanna habaarqabo sixirka khabiir ku ahi uu ku akhrinayo laba dacwo ay ku socoto iyo akhiiran hadday xorriyadu dhab tahay
xaqaa guulaystaa xaqu weligii xorriyadda kuma khasaaro inuu wiilkii islaamnimada raacay dabeetana karaamaad ka muuqdeen sada wada taqaaniin kadibna magaalo dhan uu islaamiyey kadibna daaqi uu ka hor yimi kadibna dadkii inta godad loo qoday oo dab lagu shiday dadkii oo dhan la gubay magaalada gebigeediiba waxaa ka mid a qisaska qur-aanku ka warramayo ducaadda ee aan dacwo uu sameeyo qura laynoo sheegaan wax kale laynoogaga warramin مثلا قصة ياسين سورة ياسين إلهي وحكا ورمي رسول ميل الله ديري ولا بينيي ومتكلا لغا دبا ديري وصدح رسول اسكا دبا تكتي ميل صدح رسول اسكا دبا تكتو لديدا إلهي وحكا ورمي نما نساقو الرسول الله أحين وإسحل قامي وواجب الدعوة قدنية وقوبت اللي اسكو هي حتى آنشوغين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى إليه مقالة دعال كده أيان ننكيم أردية صفة الرجولة قرآنكو انت بدن صفة الرجولة رقا أبو استعمالها لبك ماها رقا نمضى يلا بنمضى وكلا لبا إلا اللبطة حيوان مسألة إلا رقا نمضى هنا قرآنكو انت بدن رجال لا تلهيهم تجارة ربيع رجال markuu quraanku tilmaamay inta badan rijaalka uu sheega sifatu rujula dad laba ilaahay ka warraba kan ilaahay markuu ka warramayo waxa la yiri waa rajul marka hore magacii leeyahay ma sheegin laakiin sifatu rujula wata la sheeg waxa kaloo la tilmaamay maxay inuu ka yimi maxay aqsa almadina halkii la isku hayay ma joogin waa nin warku gaadhay uu rasuul xaq sheegaysa in la diiday waxaa laynoo sheegay sifadu ku yimi isagoo caajisaysan ma imanin yascaa baa layidhi isagoo rooraya buu yimi isma odhanin waar saddex nebi baa la diiday saddex rasuul baa la diiday adigu xagaad ku socotaa ilaa saddex baa la diiday ilaahay tilmaamaya saddex baa la diiday isma odhanine wuxuu is yidhi adiguna xaqa sheeg dabeetana wuxuu ku yidhi dadkii ittabicu almursaliin ittabicuu man laa yasalukum ajran wahum muhtaduun rususha raaca waxaad raacdaan cid aan waxba idinka rabin ee khayr idinku yeedhayso hanuunsan markaasuu weliba wuxuu sheegtay markii dambe wamaa lilaacbud inuu isagu ilaahay rumeeyey oo xaqa raacay oo kan mufasiriinta waxay tilmaameen in isagiina la dilay haddana isagoo dhintay baa ilaahay ka warramay siduu weli dadka inuu diin gaadhsiiyo uga fakarayay aakhira ninka ku maqan baa ilaahay warkiisa dib inoogu soo celiyey إلهي وحليه نكير دنتيبا وحليه يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين يا ليت ألا جعلان لها يبولي انتو الكي أقيهي تلكينو أقال لها جعلان لها سيد ربي دمي قوضافي إلهي كرامي قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي jannada qalbaa la yidhaho markaasuu wuxuu ka fakerayaa weli dadku diin la'aanta kaga yimi idan qisadu maxay tilmaamaysaa waxay tilmaamaysaa ahlu dacwa inay yihiin dad xil isa saaray waxay tilmaamaysaa qofku inuu dacwo gudan karo mahma kaanat الظuruuf waxay tilmaamaysaa qofku kelimadda xaqa inuu sheegi karo xataa kuwa kaa waaweyn oo kaa cilmi badan ha laba beeniye waxay sheegaysaa inaanay shardi u ahayn ninku inuu caalim weyn yahay inaad soo dhan culamada wax sheegtay adigiiba waxba lagaa rabaa meel rusuli joogto ninkani ka warramaya qur-aanku wuxuu ka warramayaa asxaabu sabt iyo wixii kala qabsaday iyo qoladii waxwaaninaysa iyo qoladii ka aamustay qur-aankuna uu ka aamustay ilaa hadda culammadu ku muransan yihiin ma xagga badbaadaday raaceen mise xagga halaagay raaceen baa la isku hayaa ilaahay wuxuu kaloo tilmaamay qoladaasi iyo cilalkay sheegteen iyo say dacwada u faafinayeen waxaa qur-aanku ka warramayaa maalan qisaska fii suurati alkahf nin beer loo ninwaaninayo oo kan beerta leh uu yahay inkaar qabe ومحاورة أي دح سعطه حوار ودح سعطه نين إلهي ديدن هيان المسكير ولا وروي
rabbigaa rubee ilaahay wuu soo naqlay magacyadooda laynooma sheegin meeshay deganaayeen iyo halkay joogeen iyo waxaasi muhiim maaha marka taariikhda ka warrama inta badan makaanka iyo zamanka iyo magacyada iyo meelahaas waa aad u ictimaadaa qur-aanku kuwa aad uma ictimaado qur-aanku wuxuu aad u ictimaadaa mawdic alcibra meesha faa'iidadu ku jirto saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu ka warramayaa fitya aamanuu birabbihim oo diintoodii la baxsaday waxaa laga warramayaa nebi muuse aqoon sheegtay oo la yidhi qolo kaa aqoon badan baa jirta oo rixlaystay oo diin u rixlaystay isagoo rasuul ah waa rasuul talabulcilmi u rixlaystay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ka warramaya oo khidir iyo xaggiisii qabtay maxaan uga dan leeyahay waxaan uga dan leeyahay mar rabo dee idinkaabaa maajisteerra u qaadanaya anugu bajularna uma soo qaadan laakiin waxaan rabay inaan idiin sheega kitaabka kani inuu yahay almarjac alawal loogu noqdo maxay taarikhda dacwa hadaynu rabno inaynu dacwo iyo taariikhdeed iyo waxay soo martay ka warranno inuu yahay awthaqu masdarin ka warrami karaa kitaabka rabbi inuu yahay dacwaadkaa markaynu eegno simaad caama bay leeyihin ay wadaagaan simaadka qur-aanka ka muuqda waxaa ka mid ah ucbudu allaha maa lakum min ilaahin hayru fattaquu allaha wa atiicuun qur-aanku in badan wuxuu ka warramayaa nebi weliba muxuu leeyahay dadka ucbudu allaha maa lakum min ilaahin hayru ilaahay caabuda rabbi u hoggaansama rabbi kale oo aa caabudi kartaan ma jiro iyo fattaquu allaha wa atiicuun alla ka cabsadoo aniga ee aqbala jidkaa rabbi u maraysaan waa kanaan wadee caqligiinna iyo aragtidiinna ha ku tijaabinine kanaan anigu wado raaca idan qisasul ambiyaa meel kasta ha ku qornaadaanee markaad eegto miftaaxa koowaad ee ka dhex muuqda wacbudu llaha wa ucbudu allaha maa lakum min ilaahin hayru taa macnaheedu waa maxay taa macnaheedu waxa weeyaan maa min inxiraafin bini aadam ku dhaca ilaa iyo waxaa laga saxaa can ariiqi alcaqiida insaanka qalbigiisu halkaasuu ka furmaa haddaad meel kale ka bilowdo murankuma dhammaado haddaad ka bilowdo wanaagga islaamku leeyahay halkan iyo meeshan baa fiican iyo kan iyo waa lagu horumaraya dee hayaanana mid kale aanu ku horumaraynaanu haynaa buu leey kaayaga laftiisu ma liito waa ku ogolay kaaguna inuu wax taraya laakiin lafteedu mid lagu liibaanaa baanu wadnaa wixii inxiraaf dhacay oo dhan inxiraafaadka dhacay ma mid qudhay ahaayeen maya taariikhda qur-aanku inooga warramay maalan markaa nebi muuse iyo fircawn iyo qisadiisa laga warramayo waa inxiraaf siyaasiya akbar taaqiya dunida soo maray waa dictatorshipkii ugu weynaayee dunida soo mara meeshuu ka saxayey waxay ahayd oo uu kaga bilaabay ilaahay caabud ilaa uu tilmaamay fircawn idhaa wamaa rabbulcaalamiin uu ka bilaabaysna rabbulcaalamiinkaad sheegaysaa waa kee dooddu soo dhex martay ilaa uu idhaha waan ku tumaya waa ku dilayaa ama waa ku xidhaya oo idhaha haddaan xaq sheegayana xataa meed xidhaysa keen waxaad haysa markaasuu leeyahy dooddu socotay qur-aankoo warramayo ilaa iyo halkaynu ognay laysla soo gaadhay reer banu israa'iil xorriyad waa lala rabay oo dee reer banu israa'iil aniga igu darbuu lahaa laakiin haddana waxaa laga bilaabay xorriyadoonkii reer banu israa'iil loo rabay waxaa laga bilaabay kan waxaa qur-aanku ka warramayaa duul dhaqaalaha si xunuu isticmaalay dadka boobay miisaanka kharribay economic problem baa jiray nebi shucayb iyo qoomkiisii waayo meel kastoo shucayb lagaga warramayo mikyaal iyo miisaan iyo dhaqaala laga warramayaa laakiin mar kasta wuxuu tilmaamayaa tawxiid buu horraysiinayaa waxaa laga warramayaa duul xadaaro iyo horumar sameeyey oo xadaaradoodiiyo horumarkoodu dabeetana qooq iyo kibir ka qaaday reer caadi waatan iminka ay leeyihiin waxa la soo helay magaaladoodii iyo la qodqoday ee la soo saaray dhismayaashan baa bilariska dhaadheer le cajiibka meelahan rubculkhalaaqa ayaa mid reer yurubi hadda qoday oo uu ka soo saaray ilaahay wuxuu kuwaa tilmaamaya atabnuuna bikulli riicin aayatan tacbathuun
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. ورميل كسته مع علامات إيو waxaa ku cayaaraysaan ma ka dhisaysaan baa la yidhi ma masnac iyo waxbaa samaysanaysaan khazaa'in biyood iyo masaanic bay lahaayeen haddaad dagaal gashaan oo dadkana idaa batashtum jabbaariin baa la yidhi waxay yidhaahdaan xadaara ballaadhan bay heleen laakiin dayana irama daati alcimaadi alatii lam yukhlaq miluha fi lbilaad ayay haayeen waxaa lagu saxay tawxiid inuu la yimaado نبي يمي نبي الله هودها توحيد ولا يماده نبي الله شعيب كذلك وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون. قرآنك وحكا والرمية bulshooyin uu ku dhacay fasaad akhlaaqi ilaa xad ay gaadheen inuu nabigu yidhaahdo wata'tuuna fii naadiikum almunkar ficilka xun inay samaynayeen oo weliba aanay ahayn ceeb lagu sameeyo guryaha iyo meelaha maaha shirarka dhexdeeda lagu samaynaya baa ilaahay qur-aanku tilmaamaya naadiga la isugu yimaado. idan waxaan leenahay qur-aanku wuxuu ka warramayaa الانحرافات البشرية الكبرى با إلهي كورن هذا مد قالته هذا مد سياسيته هذا مد حضاريته هذا مد أخلاقيته هذا انحرافات تربدا وكل نوع إلهي قرآن كورن لكن أنبياء داسي هدنا وحي وداقين مفتاحة يكجليين ومديهي هاي علماء إذا هذا المركة لما الشعبا كالتشيرو مفتاح نوال لقى بلابا وذكر ربي قد باسطة صلوه وحدا فرافض ضانية نبي ولبنا مشكلة دي قوم كيسا هيسنا وتركيزي والله كما ورمين نبي شعيب وكورم اياه فعلة قوم اللوط وهي وحا قلدتنا هي المشكلة دي مشكلة دتا. إذن توحيدك والله إيمانيسا واتصحيسا دادكو إن آخرة جرتو مارلس حسابين يا جيران وأيو آخرة يا إلهي الرومين تيسو وشيء بني آدم كالدبر الرسمي قانون كي بوليس كماها قانون كي بوليس كوا لقى دوما كرا لكن قفكم مركو الرمائيو ميدان لقى دوما نينين كتابات كدوما كرينو ما wax kasto aad samaysay red handed adigoo aakhirey lagu soo taagayo iyadoo maxay maca suuratihi leh yawmaidin tuxadithu al-ardu akhbaaraha maca الصورة bay yidhaahdaan culamadu baad ku imanaysaa inna kunna nastansikhu maa kuntum tacmal waxaa samaynayseen oo dhan waa la qorayay baa la yidhaahdaa maanta aadanuhu waxaa yahay ilaa xad haddii la yimaado meeshii dhacdadu ka dhacday wakhti aan ka fogayn asiirkaagii raadkaagii waa la sawiri karaa humaagaagii kamaraadku way soo saari karaan iyadoo different of temperatureski iyo webiski wax la adeegsanayo humaagaaga la keeni karaa laakiin aakhire humaagaaga la keeni maayo adigoo sidaadiyaa lagu keenayaa adigoo sidaadiiya innagu aadanuhu maanta ma awoodo inuu kala saaro wixii cod bini aadam ku hadlay way joogaan halkan bay joogaan laakiin aadanuhu technologygiisu ma awoodo inuu kala saaro wuxuu awoodaa frequency gaara wixii la inaad soo saari karto BBC-da dhammaantii waa dhegaysanaysaa waayo frequency gaaray ku soo dirtay frequency-gaynu naqaanaa dabeetana receiver frequency-gaa qabtaynu saarayn haddaynu heli lahayn frequency-gii codkii nebi aadam wax soo saari karaa oo lasoo qaban kari lahaa yacni wixii aadanuhu ku hadloo dhammay halkay joogaan rabbi subxaanahu wa tacaala uma baahna in markhaati kale lagugu hadlo waa recorded waxaad ku hadashoo dhan ama hadal ama aamusnow waxaad ku sheekaysoo dhammay halkay ku jiraan qiyaamaha waa laga hadlaynu nagu soo taagi idan qofku muctaqad ah inaanu baxsanaynin markuu rumeeyo ma aha qaanuunka iyo booliiska wuxuu ka baqaa waa aakhiro iyo qaanuunka dambe iyo meel laysku cadaabayo xukuna baa jiraysa kadibna ambiyadu waxay tarkiiska markaa saarayeen mushkilaadkii aadanuhu watee gaarka ah dhibtiisii gaarka ahayd simaadka guuda ka muuqda dacwada ambiyaadka waxaa ka mid ah inay aakhiro ka doorbidayeen adduunka
dadka inay ku waaninayeen aakhiradu inay ka horayso maxay adduunka walidalik baa nebi waliba wuxuu sheegayey wamaa asalukum calayhi min ajrin in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin fii suurati shucaraa ambiyada marka ilaahay ka warramo fattaquu llaha waaطiicuu nebi waliba markuu yidhaahdo waxaa haddana leeyahay wamaa asalukum calayhi min ajr diinkan iyo dacwadan iyo waxaan wado waxba idinkaga dooni maayo idan simaadka hadda sii yaraanayay ka mid tahay hadda diinta wax lagu xoogsadaa bay u badantay laakiin waxa yar dadka aanay xoogsi ka ahayn ee ilaahay dartii ka tay walidaalika nebi maxamed markuu wax tarbiyeynayey saxaabadiisii maalan baycat alcaqaba athaaniya heshiiskii keensanayay inuu nebi maxamed soo hijroodo calayhi salaatu wasalaam ansaar baa timi dhowr iyo 70 ah dabeetana nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa heshiis lala galay heshiisku muxuu yahay inuu nebigu soo hijroodo dabeetana naf iyo maal iyo carruur iyo reerkooda siday u ilaaliyaan si la mida inay u ilaaliyaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo dacwadiiyo islaamnimada ballankaasay gelayaan waxay iyana weydiinayaan markaa maxaanu leenahay innaga haddii madax dawlad dhisaysa aad heshiis la gelaysa maxaad weydiinaysaa markaad tidhaha waan ku dhisayaa waanu ku ilaalinayaa dawladnimadaan cagaa u taagayaa maxaan leeyahay markaad tidhaahdo muxuu ku odhanayaa wasiiradan badh idin badinayaa baarlamaankaan siinayaa lacagba soocaynkaa maaha nebi maxamed kuma odhanin calayhi salaatu wasalaam madaxdaa ka mid noqonaysaan ma odhanin aniga dabadayba meesha qabsanaysaan wuxuu ku yidhi walakum aljanna haddaa heshiiskaa fulisaan idinkuna janna helaysaan idan dawladnimada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu bilaabo lagu aasaasay dadku inay dawladdan dhisaan si ay aakhiro janno u helaan maaha si ay wasiirra uga noqdaan ama mansab u helaan ama waxa kan u helaan waa dhisaysaan baa la leeyay waana ilaalinaysaan nafyo maalbana waa ku bixinaysaan waxaana leediin maxay janna muxuu lahaa saxaabigii qoladii carbeeda tidhi waxaanu rabnaa cid cilmigana barta ee uu 70 quraada nabigu ku daray calayhi salaatu wasalaam waraaqda u dhiibay markuu waraaqda siridii baa kuwii waranka geliyey muxuu yidhi ku dhawaaqay haddii reer lagu diro lagu yidhaha hor diinta u soo sheeg oo ay ku yidhaahdaan waa nin fiican baa tee soo dhowow inta kursi lagu dhigo dabeetana mid xagga dambe waran lagu geliyo maxaad odhan lahayd wallaahi nimanku i dile soo maaha wuxuu leeyahay fustu warabbi alkacba waan guulaystay rabbiga kacbadaan ku dhaartay hadda waa kan la khiyaameeyey waranka la geliyey ayaa wuxuu leeyahay waan guulaystay yacni hadafkiisa muu ahayn adduun inuu helo hadafkiisu wuxuu ahaa inuu aakhira janno helo idan taariikhu dacwa ee kitaabka qur-aanka ku taalla markaad akhrido waa dad raadinayay maxay hadafku aakhiru ahaa inay aakhiro helaan waa alisaar bilaakhira cala addunya adduunka iyo waxa yaalla inay ka door bidaan aakhiro waa simada ka muuqata taariikhu dacwaha meesha ku qoran simaadka ka muuqda taariikhu dacwa markaad eegto iyo ducaadda waxaa ka mid ah ilaahay weynayntiisoo la tiro badiyo dikrullah xuska ilaahayoo la badiyo waa zaadka rasmiga ay haysteen nebi muuse iyo nebi haaruun waxaa loo diray daaqigii ugu xooga badna idhab anta wa akhuuka biaayaatii baa ilaahay ku yidhi adigiyo walaalkaaba aayaadkaygaas ku taga oo fircoon u taga laakiin maxaa idin zaada walaa taniya fii dikrii baa ilaahay ku yidhi fircoonna qabta malaa'ig baan idinku daro idin ilaalinaysa ilaahay kuma odhan saa qur-aanku inoo tilmaamayo waxaa lagu yidhi walaa taniya fii dikrii aniga xuskaygun ha ka daalin inaad aniga xustaan oo rabbigii weynaysaan taa un ha ka daalina idhabaa ilaa fircawna innahu tagaa baa ilaahay yidhi weliba fircoonka u taga wuu kibro waa qooqaye waxay culammadu yidhaahdaan markaa ducaadda dadkii loo soo diray ambiyada ahaa iyo saalixiinta ahaa muftaaxay wateen tawxiidkaasuu ahaa iyo mushkiladda bulshadoodu ay leedo ay xoogga saaraan wuxuu ahaa bay leeyihiin aakhiro inay adduunka
aakhiro door bidaan wuxuu ahaayo saddexa baynu leenahay weliba taa aakhiradan idinku celiyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii la soo diray waxyigii ugu horreeye ku soo degay cilmi iyo inuu ilaahay kariim yahay buu ka warramayey rabbi xuskii iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq maxaa ku xigay saddex suuradoodoo kale ay culammadu kala horaraysayaan oo yidhaahdeen baa ku xigay waxay u badan yihiin inay ku xigtay maxay mudathir yaa ayuha almudathiru qum faandir maxaa ku xiga warabbaka fakabir rabbi weynidiisa iyo inaad weynayso ilaahay xuskiisaa ku xiga wakabirhu takbiira weeyaan suuraddii ku xigtay maxay ka warramaysaa yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu aw zidca waxay ka warramaysaa maxay traininkaa inuu ka baxo ah ilaahay dikrigiisa inuu badiyo daaciga dhabtee dadka quluubtooda furtaa waa daaciga ilaahay ku xidhan ee aan jeebkooda ku xidhnayn waxa jeebkooda ku jiraan hunguri ka haynin rabbi xuskiisu uu ku weyn yahay walidaalika waxaynu leenahay astaamaha ay ducaaddaasi wada wadaageen ee qur-aanku uu ka warramaya waxa weeyaan ilaahay dikrigiisa in la badiyo risaalaadkii nebi maxamed ka horreeyey waa risaalaad maxalliya bay ahaayeen likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja amaa dacwada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam loo soo dhiibay si maka gedisan bay lahayd oo ah iyadoo maka joogta oo aan nebi moxamed gacantiisa waxba ku jirin ayaa ilaahay ku yidhi maxay lilcaalamiina nadiira baa lagu soo diray dunidoo dhan inaad u digto dacwaadka hore nebi muuse ayaa kala badha risaalaadka markaan leenahay kala badha maxaynu u jeednaa nebi muuse wixii ka horreeyey ambiyada waxaa la odhan jiray dacwada wada diga xad markay gaadhaan istinfaadu taaqa bay culammadu yidhaahdaan wixii awood ahaayoo dhan markay dhammeeyaan aan iyaga tamari ku hadhin ayaa rabbi kuwa hore yidhaahdaa bes ka baxa haddaba idinku dhan uga baxa aniga iyo intaa noo kala taga dabeetana wixii nebi muuse ka horreeyey ee ambiye ee qur-aanku uu ka warramay wuxuu ka warramayaa dacwadu markay xad gaadheen nebigaasi wixii awooddiisa uu dhammeeyey wixii ka dambeeyey ilaahay baa halaagay qaar bad lagu maasheeyo iyo qaar qaylo lagu halaago qayladu soo ma ogid in hubka ugu khatarsan dunida inay ka mid tahay laakiin almashkila weli tijaabada way wadaan reer galbeedku weli waxaanay ku guulaysan in la jiheeyo yani maalan laydhka waa lagu guulaystay in la jiheeyo walidaalika waa kan laserka la isticmaalo kan inagu imika dee dhan walba wuu isaga baxaya markaad shiddo dhan walba wuu faafaya laakiin bar qura ma ku toogan kartaa haa nal intaad shiddo meel qura ma marin kartaa haa laysaradan iyo hubkan imika laserka iyo wax kawaalka la isticmaalo ama codka weli ma awoodaan codka haddaad sii dayso wuu baahayaa codku wuxuu ka mid yahay in yar hadduu gaadho kadib buu ku kala googoynaya waad googo'aysa haddii cod lagu qaylo haddii lagugu sameeyo xad markay gaadho dhegtaad dalooshanta xag markay gaadho waxan baa dhaca xad markay gaadho waad googo'aysaa laakiin ka riday iyo ka lagu ridayba wuxuu ku wada dhacayaa walidaalika weli waxay wadaan tijaabo ama la jihayn karaa cod ma ridi kartaa qofka aad ku dhufanayso ku dhacaya oo aan dadka kale ku dhacaynin ilaahay uu soo ridayoo kuwii buu ku riday dabeetana iyagu baa madhay idan qur-aanku wuxuu ka warramayaa qaybahaasi saasay ku madheen nebi muuse qisadiisu isagu labadaba jihaadka iyo kan labadaba nebi muuse galay oo markii horena reer fircoon waxaa la yidhi ka baxa daba fircoon iyo kooxdiisii daad baa la halaagay laakiin waxaa la yidhi haddaba dagaal bilow baytilmaqdis waa tii la yidhi gala isaga iyo jamaacadiisii ay jamaacadii fadhiisatay tiiha lagu itixaamay ee dabeetana yuushac ibnu nuun bacda 40 sana baytilmaqdis u furtay
haddaynu nimaadno wakhtigaas ka kooban ee cahdigii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo wixii ka dambeeyey nebiyullaahi moxamed markii ay ku soo degtay dhowr aayadood اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم انت سو دغتي سوما انت markay ku soo degtay waxa ku xigay يا أيها المدثر قم فأنذر يا أيها المدثر كيسدد يو ديتارku waa maradan sare shicaarkuna waa hoose maryahan sare waaweyn markaad soo saarto ayaad isdaday يا أيها المزملنا وكيستوضوب يو كيسدد يو بالليل كعودي هاي علماء يدعون نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام تضوى آيادات باكو سود وقوه رمي لها مشان آيادات انتا وقوه الرئيسة صورة ده وحكا لوكو سود وقوه مشيرو آيات كي كحيقا وحي نقضين قم فأنذر كعودي دعوذو dadka badh baa yidhaahda culammada iyo intan ma aha cid wal oo muslima oo laa ilaaha illa allah tiri dacwo waa samayn kartaa nebi maxamed marka intaasi ku soo degtay baa la yidhi yaa ayuha almudathiru qum faandir lama odhanin horta waxa lagu bare fadhi ta nebiga cilmi badan loo dhigay kumay soo degin yaa ayuha almudathiru yaa ayuha almudathiru waxay ku soo degtay qum faandir isagoo iqra inteeda ugu horraysa quri ku soo degtay كدب هدنا سودكتي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا إلهي وحلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر مدمركو ودينا وحكو سودك محي فاسدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وأنذر عشيرتك الأقربين dabeetana nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam intuu fuulay buurtii waa kii dhawaaqee yidhi ma iga rumaysanaysaan haddaan idhaahdo buurtan gadaasheed dooxa kan ciidan baa soo socda oo idin gelaya haabay ku yidhaahdeen fa innii nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid waxaan idinka digayaa buu yidhi cadaab kulul ayaan haddaba idinka digayaa abiilahab waa kii u jawaabaya lahaa tabban laka سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا أما لهذا دعوتنا روايتك كلا قد سنة رياض السعرورية دعوة الإسلامية هذا أمر كانوا نماذن يا عهدي أن نضم رسوشة يا أنبياء يا علماء يا طلبة العلم يا المسلم العام انتو بوا دعاة مركي دعوة جوكت shartigu waxa weeyaan qofku waxaanu garanayn inaanu sheegin qofku intuu yaqaanoon inaad sheegto faatixada taqaana midaan faatixada aqoon baa jiray u dhigtay halgeysay miisaanimka faatixada garanayn baad u malaynaysaa bay ka qaldantay dad badan bay ka qaldantay haddaad u caamo faatixadu u saxan tahay faatixada u dhig nimankan tabliiqa ah waxyaabay ku fiican yihiin waxaa ka mid ah nin dhalinyaro aan xaafadooda deganay raacay oo soo noqday oo muddo la socdaan ku yidhi wareedhe bal ii warran xaafadda maxaa hadda haysaan shaqo wuxuu yidhi xaafadda dadka joogoo dhan baanu tiro koobnay haye maxaa samayseen dee dadka labaanu u qaybinaa buu yidhi wax tukada iyo waxaan tukanin gartay waxaan tukanin isaga salaadaa lagala hadlaa buu yidhi iyo inuu tukado wixii tukadana wardiinta xil baa kaa saaran baa loo sheegaa mas-uuliyadda diinta qaadoo faafi waa fikrad saxa waxaan tukanin in salaad loo sheegaa salaaddu waa rukunkii labaad ee ugu weynaa diinta islaamiga salaad haddii laga tegay ma diin baa hadhay dacwada kale la sheegaya waa maxay tawxiid dabadii ma wax kale aynu sheegnaa jiro salaad ka weyn haddii salaadi lunto maxaa soo hadhay idan dadka maqaxya laga kaxeeyo la dhaa warka halaya tukada caamadu soo ma garanaysa inay dadku tidhaa war ilaahay ka boqo kaalaya tukada waxaa u diidaya inay ducaad noqdaan marka oo intaa dadka u sheegaan waxaanay garanayn qofku yuu sheegin war aanad hubin nebi maxamed baa yidhi ha iska odhanin warkaad hubto uun iyo intaad garanaysa xaqiiqo ku og tahay intaa sheeg idan waxaan leenahay markay dacwo joogto innaga wax iska keen qaldamay dacwadii iyo cilmigii
sax kitaab iyo cilmi nimaan garanayni ma dhigo dad ahlu cilmiyuunbaa wax dhiga laakiin balaagu kan maaha nebi maxamed muxuu leeyay markuu saxaabadii isu soo ururiyey calayhi salaatu wasalaam baliquu cannii walow aaya baliquu cannii kitaab allahi oo dhan lama odhanin baliquu cannii walow aaya buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam hal aayadda ha noqotay iga gaadhsiiya idan waxaynu leenahay qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii waman axsanu qawla miman dacaa ila allah wacamila saalixa waqaala inanii min almuslimiin inanii min alculamaa maaha inanii min almuslimiin nin leh ayaa daaci noqon karaya bale qur-aanku wuxuu inoo warramayaa xataa kuwa yaryar inay dacwad fulin karaan carruurtu ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramayaa nin la yidhaha luqmaan alxakiim soo maaha hal qiso qudhu qur-aanka ku leeyahy luqmaan meel kale qur-aanka lagaga warramay suuratu luqmaan oo qudha hal qiso qudhu ku leeyahy qisada uu inankiisa waaninayo inanka yare la waaninayo maxaa lagu yidhi yaa bunaya aqim asalaa maxaa ku xiga wa'mur bilmacruufi wanha can almunkar hadda carruurtuna ducaad waa noqon kartaa markaa luqmaan inankii yaraa markuu salaad u sheegay wuxuu kaloo u sheegay maxay yaa bunay wuxuu sheegay wa'mur bilmacruufi wanha can almunkar idan ha isku qaldina markay tahay cilmi dad la barayo ahlu cilmiga iyo masaa'il laga fatwoonayo iyo markay tahay ciddii cilmila baa ku shaqo leh marka ay tahay in dadka waxaa diinun ka garanayso walow ha noqoto kii yaasiinka ilaahay inoogaga warramay intuu sheegayne ka yaasiinku wax kale ma sheegin war run buu sheegayaa raaca haddaad tidhaha war wadaadkani run buu sheegaya wadaadka raaca ma waxba kaa xumaanaya waxaa laga yaabaa odayga waayeelka ama suldaanka ama caaqilka ama waxgaradkee dadku ereygiisa u dhegaysanaya hadduu intuu istaago yidhahdo wararkaasi xaq buu idiin sheegayaa raaca hiil ka weyni ma jiro dacwo ka weyni ma jirto waxa uu sheegayna waa intaa uun isagu qur-aan badanna ma akhrin wax kale wuxuu sheegay warninkani xaq buu sheegayaa iyo maxay raaca waa dacwa waa suuratu yaasiin dacwaday ka warranta meeshii saddexda rasuul joogeen ninkii dacwada ka sheegay intaasuu sheegay ayuha alaxiba ilaahay wuxuu ina leeyahay walow shi'na labacatnaa fii kulli qaryatin nadiira walow shi'na labacatnaa fii kulli qaryatin nadiira haddaanu doonnaba ilaahay yidhi magaalo kasta mid gaaraan uu soo diri lahay rasuul gaara laakiin ilaahay wuxuu inoo sheegaya inaanu doonin maxaa ku xiga aayadda ku xigtaa waa maxay falaa tuطici alkaafiriina wajaahidhum bihi jihaadan kabiira gaalada ha maqline kitaabkaa kula dirir baa la yidhi kitaabkaasi wuxuu sheegaya in dadka u sheeg idan ilaahay hadduu doonayo tuulo kasta rasuul buu u soo diri lahaa laakiin innagaa waxaa layna leeyahay maxay kitaabkan ku dagaalgala kan baa ah risaalo wixii uu rasuulku sidigi lahaa kan buu ku yaallaa waxaan ku soo koobayaa doctor jacfar idriis sheekhan suudaaniga male weli waa nool yahay dhowr iyo 9 jir filosof oo muslim oo caalim ah jacfar idriis baa wuxuu qoray maqaal la yidhaahdo ducaad u baahan in la caawiyo markaa niman buu ka warramaya wuxuu yidhi maraykan buu joogay markaa maraykan waxaan arkay buu yidhi nin tagsiila ah baa jooga buu yidhi new york ayuu tagsiile ka yahay wuxuu qaadaa airportku dadka ka qaada suuqu geeya 6 bilood gudahood 58 qof ayuu kursiga dambe shahaada ugu qabta waa tagsiile muxuu sameeyaa marka zabuunku markuu soo fuulo ayuu quraan u saaraa cod fiican leh reer yurubku maalan maraykanku uu ka furfuran yahay yurubtan kale waxaa laga yaabaa nin guriga kaa soo horjeeda ku jira inaan weligaaba kula hadlaan oo wada degantiin weligiin inay is arkayseen hayna inaydan isku odhan baa suurtagala laakiin maraykanka iyo meelahaasi waa tororog midhan oo dada afka kula soo gelayo aad u hadal badan qur-aanku shidaa markuu qur-aanku baxo ay yidhaahdaan heestan fiicani maxay ahayd bay yidhahdaan markaa codkanu muddo isagu maqlay isagu in questionkaa la weydiiyaa unbuu doonayay wuxuu yidhahaa hees maaha waa the last revelation from god waa aakhir waxyi xagga rabbi ka yimaada dabeetana markaasuu sharxaa waxa kan dadku u sharxay
konton iyo siddeed ka mida baa yidhi waa islaamayna waa shahaada u qabta iyagoo kursiga dambe saaran mujarad inuu qur-aankaa maqashiyo kadibna jacfar idriis wuxuu kaloo tilmaamay nin kale oo soo islaamay muslimiinta masaajidka jooga u yimaada wuxuu yidhaa waryaadheen dadku naar bay ku daadanayaan waa gaalo idinna halkan baa iska fadhidaan warkaalayo raaca waxba idinku kaan idiin sheegun idinku kaan idiin keena un diinta u sheega waddadu istaaga dadka waddada marayuu ku leeyahay hallow ma islaam ma rabtaa inaad barato ma islaamaysaa badh baa yidhaa war naga bannee de qof waddada marayo inaad tiri ma islaamaysaa war ka bannee waddada yidhaa qaar baa dadku isku mid maaha mid baa yidhaha waa maxay islaamku gacantuu qabtaa laba wadaada uu ka soo kaxaystay masaajidku yidhaha u sharxa dabeetana isagoo halkiibuu ku noqdaa isagoo halkaasuu iska taagay dadkan waddadan maraya wuxuu leeyahay war ma islaamaysaa dadba in badani waxay leedahay war naga tago ordoo way dhaafayaan laakiin mid unbaa odhanaya waa maxay islaamku kii yidhaha waa maxay islaamku qabtaa maalin kasta dhowr qof buu islaamka soo gelayaa waa hal nin maalin kasta dhowr qof buu islaamka soo gelayaa idan waxay leeyihin wakhtiga aynu hadda joogno ducaadda aynu tilmaamayna waa dadkaa ninkaa isagu le anugu islaam badan garan maayo nimankaan idiin soo qabqabanayaayo idinkuna diinta u sheega qoladiinnan masaajidka jooga maalinba labun buu ka soo kaxaystaa dadka masaajidka jooga waxaan uga dan leeyahay marka taariikhda islaamiga haddaad dib ugu noqotaan muslimiin badan oo jabay waa la ogiyey laakiin jeeshu dacwa ma jabin saasuu mudiintu u faafaysay ilaa ahdigii nebi maxamed laga soo bilaabo calayhi salaatu wasalaam muslimkuu sii tiro badanayo dacwadana way sii socotay laakiin waxaa waday culamada mujaahidiintoodii iyo aljundi almajhuul diinjiraha si dahsoon ninka aan sheegaya xataa magaciisii ma xasuusto uu ka warramayo doctor jacfar idriis waa danjiraha waa diinjiraha dahsoon idan ayuha alaxiba culamo la wacdiyaa waxay la mid tahay soomaalidu waxay dhahaan waa waweyn suba ku shub waweyn suba ku shub ma taqaanayn wanku dee walbuu xoolaha kii ugu shishla ahaa dad suba ku sii shubto waa uun dee meel awalba qoyanaydu mad sii qoysay weeyaan waxaan filayaa raggani waa dee rag badhna culamo isu dhigeen badhna ducaad isu dhigeen haatan baa shaqadiinii bilaabmaysaa waxaa u socotaanina maxay wixii ilaahay idin garansiiyey inaad wax ka bixisaan sadaqa la bixiyo sadaqaadka ugu fiicanna diin baa ka mid a bini aadam aad ku sadaqadaysato sadaqaadka ugu fiican waxaa ka mid ah qof aad naar ka badbaadisay oo bisababika ilaahay uu janno ku geliyey xilkaasi inaad ku tala gashaan inaad qaadaan oo ilaahay dartii aa u qaadaan idinkoo janno ku doonaya naarna ka badbaadaya waxaad naftaada u qabanayso culays maaha haddii lagu yidhaaha dadka 4 maalmood wuxuu soo qabo waxa laga yaabaa inaad tidhaahdo dee maalin walba aanu ku sii soconaaye may iyaguna waxooda qabsadaan laakiin haddaad rumaysantay inaad adigu qabsanayso qofna tiisa kama daalo socanka ma waa baryaba waynu ka laahnaa taada kama daashay laakiin qof kale haddaad u kalaahda 2 casho bal saddexaad waxa laga yaabaa qofka daacigii tiis uu kalaahsay dadka uma kalaahsanid waxaad u kalaahsantay macdiratan ilaa rabbikum wala'allahum yattaqun soma ilaahin qoladii macdiratun ilaa rabbikum aakhirana adigu badbaado inaad tiraahdaa ilaahayow intii gaadhsiiye inaad ku biirin aladiina yaktumuunka ilaahay qur-aanka ku tilmaamayay ulaa'ika yalcanuhum allahu waa qur-aanku wuxuu sheegay in ilaahay iyo malaa'igta iyo wannaasi ajmaciinba inay lacanadayaan kuwa qariya xaqa idan mas-uuliyaddaas ay idin sugaysa waana mas-uuliyat dacwa qof kastoo muslimana saaran idinkuna aa u sii tihiin markaa طulaab alcilm dadkii wax u bartay ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala idinkiiyo annagaba in aakhirana allayna badbaadiyo waxaynu sheegaynana wax dadka anfaca in alla ka dhigo sala allahu calaa muxamedin wcala alihi wasaxbihi wasallam alxamdu lilah